Doctoreso marar kala duwan waxaa dhacda in ardaydu ay ka fakaraan inay waxbarasho sare tusaale ahaan hadda hadday dhameeyaan jaamacadda oo kale digriga labaad iyo digriga saddexaad oo kale inay u aadaan dibadda. laba arrimoodba waa dhacda. waalidku dhinacu ka walwalaa oo uga walaaca ilmihii dugsi hoose dhexe sare jaamacad dalka wax ku dhiganayay bannaanka aaditaankooda iyo nolosha waxay kala kulmi karaan. sidoo kale ardayga laftirkiisa wuxuu u baahan yahay inuu caqabadaha uu la kulmi karo inuu wax u ka fahmo. haddii marka khibradaada iyo waayo aragnimadaada aad ugu biiriso maxay yihiin caqabadaha ay la kulmi karaan ardayda marka ay dibadda u aadaan waxbarasho sare? waan salaamayaa marka hore madaxda sharafta leh gaar ahaan professorka Cabdirasaaq waan wax badan wada shaqeynay iyo dhammaan asxaabta meesha wada fadhiso dhan iyo ardayda qiimaha badan halkaan fadhida iyo jaamacadda Muqdisho runtii oo naga mudan inaan wax badan u maadcelino. يعني bandhigyada soo noocan oo kala ah waxay kordhiyaan qofka macluumaadka iyo maxay ahayto skillska uu ka helayo, يعني inuu wax badan ka fahmo meesha uu socdo wadada aad ku socoto inaad wax badan ka fahamto. mawduuca hadda aan ka hadlayno waxa laga hadlayaa qof meel joogay ama biyo gaar ku soo barbaaray wax ku soo bartay ka tagayo oo meel kale u socdo. sidiisa markaan ka hadlayno meel aad maanta joogto birina magaalo kaleba Allah ka dhigay challenge bay leedahay. oo safarka markuu rasuulka ka hadlayo muxuu yiri waa qidcatun min an-naar, yani ma sahlana inaad safarto. walidalik islaamku wax ka naxariis badan ma jiro. يعني waxaa lagu ogolaaday in laga takhfiifiyo waajibaadka Ilaahay ku saaray. misalan salaadii afarteed maxaa lagu yiri laba ka dhig, haddana waxaa lagu yiri waa jamcin kartaa. maxaa loo sameeyaa waxa soo dhan? waxaa la ogyahay caqabaadka iyo challenge-ga aad la kulmi karto. ka soo qaad marka inaad ba arday tahay qofkii weynaa baaba challenge la kulmaayo markuu banaan aado, laakiin ardaygii maxaa ka horeeyo ciddii uu ka tagayna maxay dareemaysaa? labadaa rabno hadda inaan isdul taagno hadduu Ilaahay yiraahdo. run ahaantii marka laga hadlaayo ardayda iyadoo safarka aan wada ognahay culays inuu leeyahay, haddana markaan arday ka hadlayno ardaygeena Soomaaliyeed ee u tagayo meel kale inuu wax ku barto laba marxaladood aan kala qaadno. haddii ardaygii uu marxaladda koowaad ee maxay ahayto waxbarashada sare bachelorka aan dhiraahno haddii uu ku tagayo iyo haddii uu master degree asagoo u socdo u tagayo labada way kala duwan yihiin. waxaa jira mar walbo ku siyaado garashada way ku siyaadaysaa. markasta oo da'daadu ay kor u kacdo aqoontaada iyo adkaysigaada iyo maxay ahayto kalsoonida naftaada baa kordhaysa, majuur baa sii noqonaysaa. waxaa challenge-ga ugu weyn la kulma ardayda iyagoo bachelor ah oo dugsi sare ka baxay bachelor-ka u aada dibadda. dhibaatooyinka ugu badan kuwa bay ku dhacdaa. guud ahaan challengeska kuwada ugu muhiimsan haddaan si sariica u dulmaro waqtiga la siinayaa meeshan aad buu u kooban yahay. helleeskuma ogolo waqti dheer inaad wax badan faahfaahayso, marka waqtiga anagoo ka faa'iidaysanayo challenge-ga ugu horeeya oo la kulmaysa waxa waaye waa luqadda. mar allaar marka diyaaradda sii raacdaba diyaaradda dhexdeeda Soomaali wax laguma sheegaye ama English ka horeeya ama Faransiis ama hadba diyaaradda waddanka laga leeyahay luqadda laga hadlo ayaa wax lagu sheegayaa. waxaa laga yaabaa inaad dhagaha taagto aadan garanayninba waxa ninkan uu ku hadlaayo. halkaasay horta baqdinta kaaga bilaabataa iyo walwalka kaaga bilaabanaya. waalidka sidaas si la mid ah marka diyaaradda cagaha saarto sii duusho buu bilaabayaa inuu يعني cabsi iyo walwal uu markiiba bilaabo. waana normal bini'aadanka yani markuu yani jawi aan jawgiisii ahayn galayo mar walba waa laga naxaa. xataa markuu guursanayo iyadoo la faraxsan yahay bay haddana hooyadeeda cunugeedii ka tagaya ama wiil ha ahaado ama gabar ha ahaato qalbiga way ka sii ooyeysaa laana uu ka ag tagayaa. taa horta waa mid caam ah oo jirta. luqadda marka waxay sii dheertahay annaga Soomaali haddaan nahay ama English wax ku baranaa ama Carabi wax ku baranaa, laakiin imisa Carabi ku hadli karta hadda intina meesha fadhida imisa Carabi intay qof waxay rabta kaga dhabaysan karta. waxaan hubaa inay yar tahay waa hubaa yani shaki igama jiro. English kana waa la mid in kooban oo aad u fara ku tiris ah
qofkii kula hadli kara marka barrierka ugu horeeya ama challengeska ugu horeeyo uu la kulmaayo qofka waa luqadda meesha uu ku socdo sidii uu u fahmi lahaa u isticaabi lahaa luqaduna waa adaat alfahm communicationka iyo qofka la xiriirtiisa waa power sidiisuu power u yahay marka taa waxay tahay caqabadda ugu horeysa uu la kulmo caqabadda labaad aan ka dhicin waxa waaye legalityga shuruucda qofkani meesha uu socdo sidee macnaha maxaan jaamacadda markaan tago maxaa iga hor imaan doona maxaa la iga rabaa viisaha ilaa intee la ii ogol yahay waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay qofkii inuu horta information ka sii haysto laakiin waa challenge uu la kulmi doono waxaa laga yaabaa in diyaaradda lagugu soo celiyo adigoo lacag baxsho way dhacday waxaan garanayaa arday Malaysia aaday oo aniga 2 gabdhood aan dhalay Malaysia bay aadeen jaamacaddii markay fariisteen baa la soo istaajiyo la soo celiyay hada way bilaabeen way fariisteen ogow Malaysia laga soo celiyay labadaba laana waxay ahayd sharci baa isbedelay waxa la yiraahdaa wadanka ka baxdaan dib ugu soo noqotaan qofkii marka waxay ku noqonaysaa shock bay ku noqonaysaa qodobka waa iyadana qodobka legalityga ku saabsan education systemka waa asagana challenge-ga saddexaad nidaamkan annagu hadda macallinka intuu soo muxaadareeyo ama inta wax lagu qoro adduunka inta badan kama jiro chapters baa lagu sheegay library-ga taga baa lagu leeyahay library-ga baa tagaysaa hal book kaliya inaad wax ka soo qorato wax ka soo akhrisan laguma ogolo number of books laga rabaa theories far badan baa la rabaa inaad keento waliba inaad keento kaliya ma waxaa laga rabaa your point of view adiga aragtidaada maxaa ku soo kordhinaysaa aragtida qofkan uu qabo challenge bay kugu noqonaysaa iyo cabsi far badan baa ku galaya oo academic shock baa la dhahaa oo qofkii wuxuuba ka naxayaa waxaan maba aan filayninba maxay tahay waxaan maxay hadaleeyahay halka samee waxa ka mid ah timingka laftirkeeda anaga 6 saac baa wax baranaa shifts hadana mid kale aan galnaa ilaa galabkii duurkii adduunka jaamacadka saas maaha maalinka oo dhan baa la joogaa qaarkood badankood maalinkii oo dhan baad joogaysaa jaamacadda waxaa laga yaabaa inaad usbuucii 4 maalmood kaliya aad wax ka baranayso laakiin 4 maalmood waa full time maalmaha kuu soo harayna shaqo baa ku sugaysa marka waxaa kugu soo furmaaya xad fara badan workload fara badan oo halkan aadan ku baraneen baa kugu soo furmaaya dadka qaarkood markiiba drop out baa ku dhaco oo way ka haraan waxbarashadii waalidkoodna waxay ku raahdaan waan fiicanahay meel fiican ay maraysaa waa isnaqaanaa Soomaalida hadhow unbaa cid soo sheegaysaa laakiin qodobka kale oo asagana dhibka badan oo ka yaraysan taas waxa waaye waxaan la yiraahdo homesickness cuntada meesha laga cuno qaabka environment-iga uu yahay dhamaantood cudur degdeg ah buu qofkii la kulmaaya yani waxaan u keenayaa waa isbedelka cimilada meesha ka jirta iyo waliba cunnada laga isticmaalo halka ay midan halkan ku isticmaali jiray iyadana waa culays kale qofkii soo wajahayo oo runtii aan ka dhib yareyn waxa iyadana ku jirta cultural challenge waxa la yiraahdo qaabka u dhaqmaysid gabar baa tagtay iyadoo xijaabkeedii weynaa wadata bay wadamada ka mid ah tagtay marka waxay noqotay in si gaar ah loo fiiriyo dhar bay hal kalar ah bay ku labisnayd marka kalarkii baa loogu yeeri waxa leeyahay blue baa lagu dhajiyay yani dhar blue bay wadataa iyadoo dhan marka qofkii xataa wuxuu ka qaadayaa marka in dadkii ay markiiba indhaha ku taagaan waa iyadana shock kale stress u keenayo qofkii uu leeyahay meeshani ama ba laga necban yahay culture-ka sida loo hadlo sida cuntada loo cuno sida wax loo weydiisto annaga qof kale baa qalinkiisa iska soo qaadana waxaan ku qoranaa adduunyada kama jirto ma qaadan karaa please waa inuu ku ogolaado ma sameynaa may saaxiibtay waa glass isku fadhinaa ka qaadaysa ku qoranaysa adduunka kama jirto marka taalaftirkeeda oo cultural differences ka aan leenahay iyaduna waa dhib kale oo challenge oo ardayga la kulmi karo challenge-yadu way badan yihiin haddaan ku soo gabagabeeyo waxaa jira iyadana challenge-ga financial-ka ku saabsan lacagaha masalan turki baa la tagay turkiga maalin walba fluctuation baa ka dhaca lacagaha lagu sarrifo dollarka annaguna dollar baa halka ka isticmaalnaa qofkii oo lacag badan la tagay baa waxaa dhacaysa markiiba lacagihii inay isbedeleen oo lacagtii guriga kirada loogu siiyey iyo kii jaamacadda uu ku qaatay dhammaantoodba ay iscuneen waxba uusan gacanta ku haynin reerkii uu ka tagayna intaaba yaa Allah ay ku keeneen baa dhici karta marka wuxuu la kulmayaa stress iyo dhibaato
inta badanna dadka waxaa ku dhaco cudurkan la yiraahdo stresska ama waxaa ku dhaco cudurkan la yiraahdo wuxdada la yiraahdo oo qofka kelinimo inuu dareemo uu mujtamaci ka mid ahayn asagii uu si gaar ah ka yahay uu ka dhexbaxsan yahay dhibaatada ay dadku qabaan yani xiriirkii saaxiibtinimo dhexgalkii wixii oo dhan baa ka maqan mahadsantihiin shukran دكتوريسا زعيمة طبعا حكمتها هاي alumni جامعة المقدشو أذيك أيضا لم يذهب مر هذا نو PhD holder وحياة وفر بدن نلاش كسميسة دكتوريسا هولكا كالبر كبدن وقبله وحي بدن تهاي إني كيف كرايان مستقبل روح بدن وحبرشة سيكسي هرماني الهاي سي reero dhisan lahaayeen caruur korsan lahaayeen hooyooyin u noqon lahaayeen sidee loo maareeyaa culaysyada intaas leh ee gurigii leh ee caruurtii leh ee waxbarashadii la sii wada leh ee shaqo iyo banaankii in la aado laga shaqeeya gabdhaha talooyinkaaga ugu muhiimsan ee aan siin lahayn soo dhow Dr. Zayn بسم الله الرحمن الرحيم runtii waa fursad aad iyo aad qaali u ah su-aashaasna waxaad moodaa maanta baahida loo qabay inay ka badan tahay tii shalay loo qabay markaad hadda saan u fiiriso gabdhaha meesha fadhiyo waxaan isleeyahay wax yar tiro yar 10% ama ka yar ayaa reer leh soo maha gabdhaha loo badan yahay maxaa jaamacadda iyadoo la dhiganayo loo guursan waayo haye soo noqo waa tagtay arrinta gabdhaha baryahan ee aad ku hadalhayaan oo ah in wax la barto lana guursado arday caruurta la tarbiyeeyo weliba lagu sii daro in mujtamacana loo shaqeeyo wax culus oo la samayn karin waayo laakiin waa la samayn karaa wax la samayn karo oo runtii u baahan keliya 4 talo oo aad u qiimo badan oo halka inaan ka jeediyo jirta baa jirta aniga barigaan bilaabay jaamacadda waxaan haystay 4 caruur waxaan ka mid ahaa ardaydii imtixaankii u fariisatay laakiin jaamacadda aanan fariisanin baan ka mid ahaa oo jugta ay ku dhacday kuwa baan ka mid ahaa marka bini aadanka sidiisaba waxa dhaqaajiya waa waxa loo yaqaano yoolka ama higsiga yani adiga ma tahay qof hadaf leh dhabna ma kaa yahay hadafka aad leedahay may rabtaa dhab ma kaa tahay inaad wax barato dhab ma kaa tahay inaad hooyo wanaagsan noqoto dhab ma kaa tahay inaad caruurtaada ka dhigto kuwa ugu wanaagsan su-aalaha marka hore inaad ka bilowdo oo isweydiiso haddii taa ay kuu soo baxdo inay dhab kaa tahay oo xaqiiqo kaa tahay waxaan la samayn karin markaa ma jiraan wax bini aadan mid ka mida uu sameeyeyna bini aadan kaloo la mida uu samayn karaa maalinkan jaamacadda bilaabayay caruurta aabbahood xataa muusan joogin suudaan buu jiray marka asna wuxuu baranayay marka su-aalaha kusoo degdegaya qofka waxay tahay sidee bay dhici kartaa shaqaalana waan ahaa runtii marka sidee qof bini aadana u maarayn karaa way sahlan tahay wuxuu u maarayn karaa marka hore kow qofka inuu leeyahay yool uu hugsanayo inuu leeyahay ay adiga mabda'iyan aad aaminsan tahay hadafka aad leedahay inaad naftaada ku kaxayn karto meesha hadafka uu ka jiro waa qodobka ugu muhiimsan qodobka labaad waa inaad la imaato wax la yiraahdo commitment yani iltizaam aad la timaado yani hadafka inaad gaarto inay ka go'an tahay qof xaazim ah oo go'aan leh inaad tiid ayaa loo baahan yahay qodobka kale ee saan u maareeya ahna laba bis ay kaaga baahan tahay inaad manage garayso time-kaaga inaad saf dheer u gasho burkiyarada oo aad saacaad sugto dadkaa horreeyo oo halkaa aad rabto inaad maanta madaxa soo foonaysato oo waqtiyo aan macnaha yani mala yacni baa la dhihi karaa ah waqtigaa ku dhumiso
inaad gurigaaga fadhiisato shanlayso qaadato shanlaysato way kala duwan tahay soo ma inaad shanlaysato 2 daqiiqo u baahan tahay laakiin aad burkiyar aado oo aad halka saf u gasho waxa laga yaabaa maalin nuskeed inay u baahan tahay marka isma keenayso hadafkaaga marka waa inaad marka ugu horeyso hadaad akhrisaan buugga la yiraahdo al-caadaat as-sab'a hadafka yani qaybtiisa saddexaad wuxuu leeyahay waxa sameeysaa wax la yiraahdo prioritization ama al-awlawiyya luqadda carabiga luqadda Soomaaliga inaan waxaan leeyahay mudnaanta say u kala leeyihiin wax sida u kala mudan yihiin si waxa ma sameynayso inaad maanta dhan xagga timahaaga u jeediso laakiin waxa muhiim ah inuu magacaaga shalaysan yahay nadiifna ku yahay ka way kala duwan tahay taa marka waxay ku keenaysaa inaad time-kaaga ka faa'iideysato si effective aad time-kaaga u manage garayso sida ay u kala ahmiyad leeyihiin aad u kala hormariso iyadoo maanta cunugaaga uu xanuunsan yahay halka uu yaallo haddaad tiraahdo maanta xisadda igama baaqanayso ma shaqaynayso waxaa mudan marka hore ilmaha inaad qaado dhakhtar tusiso oo aad adiga baahidiisii keerkiisii aad ku bixiso waqti badan maxaa jira hadafkaaga koowaad ee nolosha waa inaad carruurtaada tarbiyayso soo maha annagu haddaan dumar nahay awal hadaf ina hor yaalla waa carruurteena inaan tarbiyayno inaad adigu wax barato carruurtaadana ay yihiin kuwa ugu liita xag aqoon xag aadaab waa wax runtii aad looga naxo marka waa in carruurtaadu ay noqoto kuwa xagga aqoontana ugu horeeya kuwa xagga aadaabtana ugu horeeya waxayna ku noqonayaan inaad waqtigaagada manage garayso prioritization aad u samayso oo mar walba mudnaanta wixii mudan aad siiso midda saddexaad aan ku daraayo waxa waaye schedule inaad leedahay qorsho iyo plan iyo jadwal inuu jiro ayaa u baahan tahay waqtiga shaqada aad qabanaysid guriga waqtiga carruurta aad daryeelkooda ku bixinaysid waqtiga aad odaygaaga iyo howlihiisii ka shaqaynayso waqtiga aad wax soo baranaysid waqtiga aad jaamacad wax soo shaqaynayso ama shaqo aadayso intaba waa inay ku kala qorshaysan tahay mar walbana ayna dhicin inaad isku dhex walaaqdo oo aad mar walba saad rabta ka yeesho qodobka ugu dambeeyo ku soo qatimaa wuxuu yahay haddii ay kugu cuslaato in case support raadso maanta Soomaaliya haddaan joogno eedooyinkeed baa jooga habriyaasheen baa jooga ilma adeero ilma habreedo waxaasoo dhan baa jooga hadday fursad midii haysata aad soo kahaysto tiro maanta walaal intaan jaamacadda ka dhammaynayo carruurta waxaan rabaa inaad ii ogaato uma laynaa inaad ka weynayso supportiga ummadaha kale ma haystaan laakiin Soomaali way haysataa ka faa'iideyso oo ka miro dhali marka waxaan leeyahay gabdhow aroosyada baa sida subaxdii loo tago baa habeenadii 12 laga soo noqdaa salaada subax dad bay ka tagtaay waqti lama weynin waxa la waayay qof dhab uu ka yahay hadafkiisii waqtiyeyn karana howlihiisii waa ma santii salaam alaykum